Buunda qadiimi ayaa waxay ahayd waddada kaliya ee dadka tuulooyinka raacaan si ay markaasi u gaaraan waddada weyn, taasoo markaasi sii gudbinaysa dhinaca magaalooyinka. Buundada hoosteeda waxaa marayay webi aad u weyn, kaasoo markaasi ay biyihiisa ka bilowdaan buuraha, kaasoo ahaa mid mar walba qabo xataa xilliyada kuleylka ah. Cidna ma garanaynin inta uu la egyahay webiga dhererkiisa ama guntigiisa inta uu joogo. Dad dhif oo galay markaasi aan ka ahayn, kuwaasoo markaasi arrintiisa sii qariyay, taasoo qarsoodida webigani badisay. Wuxuu go'aansaday xoogaa yar inuu ka nasto imtixaankii isku diyaarinayay. Dhabarkiisa ayaa saaid u xanuunayay, sidoo kalena madaxa ayaa xanuunayay. Wuxuuna go'aansaday inuu yara socdo. Okiyaalihiisa ayuu iska siibay, isagoo markaasi indhihiisa ay yara xanuunayaan maadaama okiyaalo la'aan waxba ku arki la'yahay. Gurigiisa markuu ka soo bilaabay socodka, waxa uu dareemay qabow saa'id ah maadaama ay ahayd Oktoobar, sidoo kalena ay dabayl culus socotay. Wuxuu dhaafay guryo badan oo deriskiisa ah, wuxuuna u socday dhinaca buundada qadiimiga ah. Wuxuu aad u jeclaa dareenka ah inuu maqlo sharqanta geedaha isagoo markaasi u socda dhinaca buundada, kuwaasoo hadda saaid u sii gaboobayay. Sidoo kalena wuxuu daawan jiray shimbiraha markii uu kor istaago buundada, isagoo ka masiirsan xornimada ay shimbiraha haystaan. Markii uu soo dhawaaday buundada, wuxuu rajeynayay inuu ka gaaro samada buluuga inta aysan madoobaanin ka hor. Xilligan oo kale wax shimbiraha ma aysan joogin, sidoo kalena kalluumaystayaashii ma aysan joogin. Wuxuu rajeynayay inuu dhageysto sharqanta biyaha hoos socda buundada, kuwaasoo xilligan oo kale ahaa kuwo aad iyo aad u qurux badan. Markii uu si fiican ugu soo dhawaaday, wuxuu arkay buundada dhexbartankeeda meeshii uu jeclaa inuu istaago, isagoo u taagan yahay markaasi nin, kaasoo qaba maro madow oo aad u dheer oo dhulka gaaraysa. Wuxuu markaasi ninka u sii jeeday dhinaca, wejigiisana ma uusan arki karin. Wuxuu mooday inuu madaxa kor u qaaday, laakiin wejigiisa marada ayaa qarinaysay. Brandon ma uusan arkaynin ninka waxa uu gacanta ku haysto, laakiin wuxuu u ekaa mid wax ku qoraya buundada. Brandon wuxuu dareemay dareen aad u wanaagsaneyn oo jirkiisa ah, sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu bedelo qorshihiisa, isagoo markaasi go'aansaday inuu dhinaca hoose oo dhinaca geedaha qaado. Markaasi wuxuu awoodaa inuu daawado webiga, sidoo kalena oo uu markaasi uusan arkin ninka meesha saaran. Waddadaas ayuu qaaday isagoo ninkii gadaal kaga soo tegay. Xilligan oo kale cawsku aad ayuu u dheeraa, meeshan oo ah meesha ay nimanku ka kalluumaystaanna si fudud looma mari karin. Sidaas darteed si tartiib ayuu u socday, isagoo ka baqay inuu cawska ku kufo. Habeenkii wuxuu noqday mid aad u sii madoobaanaya, kayntuna waxay ahayd mid ka sii aamusan sida dabiiciga ah. Asaga inkastoo ay qabow ahayd, haddana wuxuu dareemayay dhidid markaasi dhuunta kaga yaalo. Wuxuuna iska ilaalinayay inuu ku istaago qoryaha yaryarka. Wuxuu maqlay sharqan meel fog ah, wuxuuna dareemay cabsidiisii hore mid ka sii badan. Markii uu ka soo bixi rabay kaynta, ayuu wuxuu arkay dab meelaan saa uga fogaan ka shidan. Markaasna wadnihiisa wuxuu bilaabay inuu boodboodo. Horey ayuu wuxuu iskugu canaananayay fulaynimadii uu markii hore muujiyay. Hadda markaasna wuxuu go'aansaday inuu hore u sii socdo. Ugu dambeyn kayntii uu ka soo dhammaaday, haddana wuxuu ku taagnaa ciidii iyo sidoo kale dhagaxaantii. Markii uu si fiican ugu soo dhawaaday webiga dhinaciisa, wuxuu arkay 3 nin oo gacanta ku haysta toosh daba. Dabka markaasi dhulka ka shidan, iftiinkiisa wuxuu ka dhex muuqday webiga. Wixii xigay oo markaa arkayna wadnaha ayuu fariisiyay. Dhulka waxaa yaalay nin markaasi qaba surwaal keliyaato oo inta kore ka qaawan. Markaasna waxaa loo kala xiray ninka 4 gees. Brandon ma uusan awoodin ninka wejigiisa inuu arko maadaama ninka wejigiisa ku qarsanaa maro dhiig leh. Brandon aad ayuu u sii cabsaday markii nimankii bilaabeen iyagoo tooshkoodii watay inay ku wareegsadaan. Markaasna waxay akhrinayeen biyaha ayaa ku nadiifin doona. Neefta ayaa ku dhagtay Brandon isagoon garanayn wuxuu sameeyo. Nimanka mid ka midna mindi ayuu ka soo saaray maradiisa. Markaasna Brandon qayladiisa ayuu ceshtay. Wuxuu soo ilaaway inuu taleefankiisa soo qaato, sidaas darteed ma awoodo inuu booliiska waco. Wuxuuna meeshaas taaganaa isagoo xabsi la qalalan oo markaasi daawanayo wax u eg dhiig daadin. Sakano gudahood intuusan ninka kor u qaadin mindidiisa, waxaa markaasi soo dhawaaday doon yara. Doontii yarta oo dhinaca soo istaagtay. Markaasi waxaa ka soo degay nin afraad, kaasoo ahaa kii buundada saarnaa. Kadibna koofiyadii ayuu iska saaray isagoo wejigiisa muujinayo, wejigiisa oo markaasi taatuu ku wada qornaa. Xataa mugdiga habeenkii waxa uu awooday Brandon inuu arko indhihiisa cabsida,
kaasoo agagaarka eegayo. Sakano gudahoodna indhahooda ayaa isqabtay. Cabsidii uu markii hore dareemayay si saa'id ayay u sii badatay markii uu bilaabay ninka inuu dhinaciisa ugu soo dhaqaaqo si xoog ah. Brandon cabsidiisa ayaa ka badatay, wuuna ilaaway ninkii markaasi la birayn rabay, isla markiina wuxuu bilaabay inuu gadaal meesha uga cararo. Wuxuu maqlayay ninka ka dambeeya neeftiisa isagoo markaasi ordayo. Geedaha ka horeeyna waxay bilaabeen wejiga inay kaga dhacaan. Sanbabihiisa ayaa markaasi gubanayay. Asaga maadaama uusan adkaysi badan lahaynna, inta yarta ay guriga ka dhiman waxay ula ekayd noloshii dhan inay ka dhiman tahay. Wuxuu markaasi ugu dambeyn ka soo baxay keymaha, asagoo soo istaagay waddada. Sidaas darteed dhinaca bidix ayuu u leexday dhinaca buundada, maadaama aysan guryo ka agdhoweyn iyo sidoo kale qof uu caawinaad weydiisto. Oksijiin la'aanta ayaa waxay bilowday inay kasoo muuqato, dhuunta ayaana xanuunisay. Wuxuuna markaasi rajeynayay inuu buundada gaaro si qof u arko oo uu caawinaad weydiisto. Brandon oo aad u daalan ayaa wuxuu bilaabay si tartiiba inuu buundada ugu dul socdo. Markaasna gadaal markii uu eegay wuxuu arkay ninkii ceersanayay oo xoog ugu soo socdo haddana mar kale. Markii uu gaaray dhexbartanka buundada ayuu wuxuu bilaabay naxdin dartii inuu istaago. Kadibna wuxuu bilaabay inuu hoos u eego meeshii uu taagnaa markii hore oo uu wax ku qorayay ayuu bilaabay inuu akhriyo. Si fiican looma arkaynin maadaama mindi lagu qoray, laakiin wuu hubay inay ku qorneyd Brandon McCain laga bilaabo 7 August 1993 ilaa 20 Oktoobar 2021. Markaasi waxay ahayd magaciisii iyo sidoo kale waqtigii uu dhashay. Markii uu arkay ninka la soo dhawaanayay mindidana, wuxuu ogaaday waqtiga kale inay tahay maantay dhimashadiisii iyo isla meeshii uu ku dhiman lahaa. Markii uu ninka ku dhufan gaaray, Brandon maskaxdii dhan ayaa ka tagtay, asagoo meesha ku ilaawaya sheekooyinkii looga sheekayn jiray oo ah qabowga webiga iyo sidoo kale bahalada ku jira. Waxba kama gelin, lugta ayuu saaray, kadibna wuu ka soo booday buundada asagoo wax yar kaga badbaadaya mindidii wadnaha ka geli lahayd. Kadibna wuxuu isku tuuray webigii qabowga. Markii uu ku dhex dhacay oo biyuhu kala firdheen, dhiiggiisa ayaa wuxuu bilaabay inuu si xoog u socdo. Waqti yar ayuu haystay si uu kor u fiiriyo ninkii dharka madoobaa oo weli isaga hoos u fiirinayo. Wixii intaa ka dambeysay, wuxuu isku dayay inuu kor sabeeyo, laakiin biyaha aadka u qabo ayaa waxay bilaabeen inay hoos u jiitaan. Waxa uuna jirkiisa bilaabay inuu la gariiro xanuun saa'id oo uu dareemayay. Si tartiib ah ayuu wuxuu bilaabay Brandon inuu indhihiisa u xiro, asagoo markaasina mar dambe dib u furi doonin.